السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. abdaqani waloore baad dilaysaa baa la yidhi waayahay baan nidhi guddoomiyaa laygu sheegay nin nabadoon u ahaaday ninkaasuu ii soo maaqaaday ninkii ii koowaad falkii koowaad aan sameeyey weeye oo ninka aan ku dilay waa falkii koowaad hadda aan sameeyey waa midkaan laba habeen baan kala tusay masaajid ku tusay habeenkii saddexaad hawshii baa la fuliyey ani asagaan ahayn waa tusay hawshii baa fulinay kabacdina ishii baa laga baxay meeshii buu ku dilay bustooladii xaafadda ii dhigay bustooladii ii soo dhibay intii ii soo abeeyay bustooladii ii soo dhibay ninkii wax yiri waa soo tugtay salaada waa ka soo baxnay maqrabkan isku meel baan ka soo tukanay hadii adaa laga rabaa inaan gacantaadii ku baxo ninkaas ninka oo dad la socdo baan arkay oo masaajid ka soo baxay habad baan qabsiyay madax ila salaad Abdullaahi Cabdi waxaan ka dhashtay magaalada Baydhabo meel u jidho 25 kilomitir leeyahay gofguud gaar ahaan tuulada Alayum baan ka dhashtay gaarka ay waxaan ku noolahay adiga laxsano hata aan joogo iyo 2 sano ka horeysay mar joogaan ka laabtay oo taasi aabay aadi hadda waxaan ku noolahay 6 sano oo aadi ah waxaan ka shaqayn jiray aska maali baa askaha mar gaariyaal la soo jiray marka hadda u dambeysana waxa ka shaqaynay dhagax qof dhagax la oo dhagax dhismada ka shaqeeyo oo dhagax ka qaraabta aha say dhagax u qaraabinay baan waxaan bartay nin la yiraahdo goobe 2022 baan bartay bishi koowaad goobe saa ula shaqaynay shaqaalnimo kala shaqaynay fundiyuha asi ani shaqaala aha maalin buu hadal buu ii dhibay hadalkaas oo ah shabaabnimo buu ii dhibi jiray oo ii dhibi jiray salaado arinta aan ka dhex jirno aan ka shaqaysaneyn waa dhagaxna waa nacfiyaasi leeyahay malahan aan buu aan ka shaqeeyay laakiin shaqo kale khaas ah aan leeyahay baa jidh ee kala shaqeyso oo maxay tahay dhay waa weydii waa iga jawaabay wiilay shabaab baan ahay bishii lacag baan qaataa riga igala shaqeeya dhigaasna waan ka shaqeystaa mana la dareemo adna aniga iga mid tahay wiilay geeskayga igala shaqeyso anba kullu mid baahay mana lagu dareemay misheerkaan waa saqaanaysaa geeskaas kale dhigaana waa isku wadanaysaa waxa la ogaanay aad tuuta u qaadanaysid maalin walba hub aad wadaysid ma ahan wiilay igala qaraabo $50 buusiyay yiri orod ka soo danayso marka ka soo danaysatid kadib shaqaan qaaraba rigna waa ku barayaa hadii jarnaatigaadana $50 ma $50 dan baan ku siiyay dad aad leedahay ka soo dhamayso kadib wixii jarnaati aad leedahay iyo wixii meeshii waxa ka soo baxay iyo wixii yihiin iyo waxa kala diban ka faansiina buu yiri wax walba diban ka faansiina hayeen dhahay $50 aan ka qaad nin nabadoon u ahaaday ninkaas ii soo maaqaaday ninkii ii koowaad falkii koowaad aan sameeyey weeye oo ninka aan ku dilay waa falkii koowaad hadda aan sameeyey waa midkaan aan soo dhaqay oo hubka ii soo dhiibay marab iyo meel mar u dhaxaysa ahayd hubku markii ii soo dhibay bustaalad ii soo dhibay intii ii soo abeeyay bustaalad ii soo dhibay ninkii wax yiri waa soo tugtay salaada waa ka soo baxnay maqrabkan isku meel baan ka soo tukanay hadii adaa laga rabaa inaan gacantaadii ku baxo ninkaas ma saasaan dhahay haye waan dhahay waa soo labisnaa ku imaanaya meel la yiraahdo agaar weyne baa uu tagay maqrabkii markii la soo tugtay kadib sheene oo soo dhowday gurigiisii iritiisa istaagnay bustaaladu ii abeeyay baa halkaas ku taagtay wiil salaad bustaaladaas xilligaas habad way ku jirtaa gacantaada kaliya rabtaa buuri taagisteedii masaajidka al-Ma'muur xafad garsoor laanta koowaad hadda ninka waxa yiri ninka aad dilin oo aad fafakeentada astaafsid oo aad tiraahdo ninkan naftarkaasba u sheeg falkaas tiraahdo ninkan uu dhimanaya adna waa dhimanaysaa buuri maana dad ba kala socdaada arkayn ay fahansanin xilligaas uu yiri bahashaas
qaado falkaas ninkan waa joo hadda masaa'idka dhaxdiisa gashid ka soo weydid waa waxa lagu haysto maahan buu yiri waxa lagu haysto maahan ninkii arkay ka soo laabtay hadda istiraadin adaa naftaada ku weynay buu yiri ninkan aan waa dilinaya mar walba ninkii anoo sii socdo masaa'idka u sii socdo masaa'idkii baan oo gelin masaa'idka laab buu leeyahay dhan geerishka xag ka soo marta wada dhanna laamiga ay ku soo dhacday masaa'idkii qurux ka soo bax xageedii bay soo martaa mid qurux ka soo bax xageedaan soo maray luuq yara laamiga kaga soo dhacay laamiga markaan ka soo dhacay soo leeyahay aan masaa'idkii aan soo aaday ninka oo dad la socdo baan arkay oo masaa'idka soo baxay habad baan qabsiyay habad baan qabsiyay madax ninka oo dad la socdo baan arkay oo masaa'idka soo baxay habad baan qabsiyay habad baan qabsiyay madax habad baan qabsiyay waa array habadaan ka dhuftay mid labaad inaan ku dhacday ina aqmartay meeshii kale waa qarqaraani tii kood markaan ku dhuftay tan labaad ani maska fiican mayn waa soo tuuray kaliya laba habaan tuuray sideed inaan ku dhacday ina aqmartay ina madaxa u dhacday ina feera u dhacday ina loosh u dhacday meeshii kale laakiin tii hore madaxa u dhacday goolkan ii koowa waa mushinkan ii koowa waa shabaabnimo markii aan koowaad alle dhaho shabaab noqo ninkii ii koowaad aan gacanta ku baahan waa ninkan ninkii shabaabnimo magaciisa ii soo qaaday ii soo qaaday oo isku tashkiilay oo professionkeeda lahan goobuwe qof kale ii soo labeeyo oo shabaabnimo igu soo sheego oo ii keena shabaab noqo dhaho nolosha intii aan noolaa ma arkin ninkii koowaad oo shabaabnimo magaciisa ii soo qaaday goobuwe midkii koowaad aan gacanta aan ku baxon waa ninkan ma ku soo wareegin markii aan la isoo qabtay odaygii dhintay ma ku soo wareegin marka 20 cisho ama bil laguma joogo waqti aan la isoo qabtay bilba ma dhum inta odaygii dhintay iyo inta aan gacanta laga soo dhigay oo ciidanka gacanta laga soo dhigay oo ninkiin hadda gacanta laga hayo oo ani falka ii geysto oo aan falka ii dhaxgeliyay oo shabaabnimada ay soo geliyay koorna ma ku jirin kadibna qof kale iliimaan isii kaliya programkaas ii keenay isna waan rabaa inaan xukunka aan leeyahay mid la mid ah la marsiyo kuwa kale isii ka dambeeyaan banaanka la soo saaro dawladda intaas aan qoosanaayani magacayga waa Abuukar Cabdi Abdiraxmaan waxaan ku dhashay Fitadheer waxaana wax ku bartay Qoryooli barashadeedii labaad waxay ahayd marka kalkacayna waxaan imid 97 shaqadaydan waxay ahayd fuundi oo la yaqaan goobe ma garatay bisha soon hadda aan soo dhaafnay baa la soo wacay wiilkaagii kan baa leeyahay anigu nin shabaab ah adna shabaabad ku darsamaysaa aw Maxamed Abuukar Nookeen haddaadan noo keenina waad ka maqan tahay waayahay baan yiri hawshii baan galay wiil baan tashkiiliyay waa iga diiday iyo kuwa kale iyagana aan bagaranaynin waa iga diideen ninkan oo shaqaale ii ah baan tashkiiliyay asna wax lacag oo guna baan siiyay asna hawshii baa la galay ma garatay Abdaqani Waloore baa dilaysa baa la yiri waayahay baan yiri gudoomiyaha la igu sheegay asna waa u sheegay salaad waayahay buu yiri hawshii buu galay laba habeen baan kala tusay masaajid ku tusay habeenkii saddexaad hawshii baa la fuliyay ani asagaan ahayn waa tusay hawshii baa fulinay ka bacdina ishii baa laga baxay meeshii buu ku dilay bistoolada xaafadda ii dhigay masaajidka Macmuur banaankiisa ma garatay bistooladii xaafadda ii dhigay waxa kamid ahaa in ninkan uu qaarijiyo wax allaala wixii lacag la ii soo diro inaan kala barano ani asaga lacag oo la ii ballan qaaday ma aha 500 400 mid milyan lacag ana ku soo diray kugu filan adiga iyo inta kula shaqeeyay waayahay baan marka
asna waa u sheegay waayahay buu asna hawshii saarsan ku galnay hawshii waa ogolaanay waa iga ogolaaday okay qofkii u horeeyay idin soo sheegay shaqada ka qabanaysa qofkii uu ahaa ina waloore magacaw Abdiqani muxuu ahaa gudoomiye ma taqaanaa ma Abdiqani fahmaan ma taqaanaa hore baan u garanay hore ma taqaanaa xaafad xageed baa jirtay de garsoor ma daris baa ahayd daris ma ahayn laakiin anigu garsoor oo dhan ba aan ka ahay isaga si fiican baa taqaanaa garsoor oo dhan baan ka ahay okay Abdiqani maadaama aad taqaanay gudoomiyada lagu sheegay salaad seef ma Abdiqani ya salaad Abdiqani seef ma barta salaad laba habeen baan tusay baan ku yiri laba habeen waxa ka tusay masaajidkan ku tusay masaajidka macmuur xafadee yala garsoor okay laba habeen baa Abdiqani salaad tusay kadib maxaa xigay kadib hawshan la qabtay operation dilka la qabtay yaa la dilay isaga waa kuma salaad ninka la dilay waa kuma waa Abdiqani waloore Abdiqani waloore maxaa lagu dilay gudoominimo wuxuu loo isticmaalay inta ahaa oo asaga shaqadiisa ahaan waxa uu loo isticmaalay nooca bistoolad bay ahayd bistoolad waxay keentay bistoolad ani asaga naga dhaxaysay oo hore u ahayd salaad oo hore u haysay ani asaga naga dhaxaysay hore ba u haysanaa okay xagee lagu dilay markaa Abdiqani waloore masaajidka oo macmuur masaajidka macmuur waa masaajidkii aad ku badhanyaa masaajidka macmuur baan ku tusay meeshaan lagu dilay okay masaajidka macmuur ku tukan jiray may habeenada aad tusaysid ninkan masaajidka miyaad ku tukatay annaga Soomaa masaajidka ku tukatay ninka barays ani asaga labada habeen baa ku tukatay laba habeen habeenka la dilay ku tukatay masaajidka habeenka lagu dilay may banaankan ku sugay banaan okay adiga marka xagee lagu dilay Abdiqani masaajidka dhexdiisa lagu dilay banaankiisa banaankiisa salaad cisha marka laga soo baxay intee ku dhacday Abdiqani marxuum ya intee xabo ku dhacday laba xabo dambi inaan galay waa cadahay oon xalaal ahayn oo nijaaso xaraan ah dawladda Puntland ayada gacanteeda ku jiraan wax walba iyada awoodaada anigu dalabkeygii sida iyadu jeceshay qofka dambi gala dambigiisa lagu fuliyo kii aan dambi galin dambigiisa la daayo asna baan ka codsanayaa maanta ay taariikhdu tahay 13 bishii 12 2022 waxa fariistay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida dambiyada culus mudug iyo cayn oo fadhigooda u dhan yahay uu heliyo xiraaliye gaashaanle Awil Warsame Maxamed iyadoo u fariistay kiis ciqaab ah oo loo haystay eedaysanayaasha kala ah kow Abubakar Cabdiraxmaan Sheekh Suufi ina Khadiijo Barre 52 jir Salaad Maxamed Cabdi ina Xamiido Cabdinuur 28 jir kuwaasoo ku eedeysnaa inay dileen ex nabadoon Abdiqani Xasan Xuseen Waloore asbaabta xukunka maxkamaddu markay aragtay gal dacwadeedka CID-da maxkamaddu markay aragtay eedda xeeraaleynta iyo soo gudbinta gabagabadeeda maxkamaddu markay aragtay difaaca qareenka maxkamaddu markay aragtay isdifaaca eedaysanayaasha maxkamaddu markay aragtay kufishinka qiraalka ah ee eedaysanayaasha uu ka qoray garsoore hortiis maxkamaddu markay aragtay cadeymaha maqalka iyo muuqaalka ah xukun maxkamadeed shawr maxkamadeed kadib maxkamaddu eedaysanayaasha kala ah Abubakar Cabdiraxmaan Goobe ina Khadiijo Barre 52 jir iyo Salaad Cabdullaahi Cabdi ina Xamiido Cabdinuur 28 jir maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho iyadoo maxkamaddu u cuskatay shariicada islaamka suuratul maa'ida aayadda 33 xeer lambartan qodobkiisa labaad firqadiisa koowaad cidii dood ka qabtaa waxa u furan 3 casho gudahood oo rafaan ah taliyaha xabsiga waxa la farayaa inuu xabsiga ku hayo xukuumanayaasha